بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي waxaan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo TV-ga qaranka Soomaaliyeed uu ku wareysanayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud barnaamijkan waxaan ku qabanaynaa magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabelle ee gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo dhawaan dowladda Federaalka Soomaaliya ay gudoomistay waxaan rabaa marka hore inaan ku soo dhaweeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud barnaamijkan anigoo waliba uga mahadcelinayo wareysigan gaarka TV-ga qaranka Soomaaliyeed oo siiyay waa mahadsantahay ardaas madaxweyne dowladdaada 2012 soo bilaabatay ilaa 4 sano waxaa la maanta la soo gabagabeeyay oo magaalada Jowhar lagu soo gabagabeeyay dhamaystirkii dhismihii dowlad goboleedkii afraad oo noqonaya dowlad goboleedka Hirshabelle ee gobolada Hiiraan iyo Shabeelle marka laga hadlayo dowladdan hadda jirto Puntland dowladihii dowladdii federaalka rasmiga ah ka horeysay afartan dowlad goboleed hadda dhismay marka madaxweyne dowladdii waa la dhameystiray maanta dowlad goboleedyadii nidaamkii federaalka waa la dhameystiray marka laga reebo magaalada Muqdisho iyo maqaamkii caasimadda maxaa xiga madaxweyne marka hore maadaama dowlad goboleedyada la dhameystiray bismillah alxamdulilah dalka Soomaaliya maanta waxaa ka hana qaaday oo ka jira 5 dowlad goboleed midba maalin uu soo dhismay waa kala horeeyeen dabcan waa kala taariikhda ay samaysmeen aad u kala horeeyay laakiin 5 dowlad goboleed oo isku xuquuq ah isku waajib ah isku door ka qaadanaya dowlad dhisidda Soomaaliya waaye Hirshabelle ugu dambeysay oo maanta aan calaamad saarnay madaxweynaheedii iyo madaxweyne ku-xigeenkeedii marka waxay calaamad u tahay horumarka dowlad dhisidda Soomaaliya ay gaartay waxay calaamad u tahay horumarka laga gaaray dhinacii federaaleynta dalka oo dastuuriga waajib dastuuri ku ahayd dowladda inay fuliso in badan oo kamidana horay looga gaabiyey oo suurtageli weyday duruufo jira awgood ay u suurtageli weyday yaa maanta leenahay hase yeeshee shaqada dowlad dhisidda nidaamka federaalka ah meel fiican uu soo gaaray dowlad goboleedka shanaad inuu samaysmana horumar aad iyo aad u weyn waaye laakiin de nidaamka dowlad dhisidda weli waxbaa kasii laaban magaalada Muqdisho waa sheegnay gobolka Banaadir maqaam gaar oo leeyahay dastuur ku qoran maqaamka gaar ah in la dabaqo way dhiman tahay gobolada waqooyiga Soomaaliyana way dhiman yihiin weli in ay qayb ka noqdaan nidaamka federaalka ah sida ay nidaamka federaalka qayb uga noqon karaan nooca iyo awooda waxa ka dhaxeyn waxaasoo dhan waa howlo farsamo oo dhiman weli laakiin maanta dalku nidaamkii federaalka ahay waa ka dhaqan galay la dhihi karaa gobolada waqooyiga siyaasad kale oo aan federaalka la xiriirin ay u maqan yihiin uma maqna nidaamka federaalka ahay oo xaggooda ku dhiman ama muxuu ahay mushkila xagga federaaleynta ah ku jirta uma maqna way madaxweyne sidaan ognahay dowlad goboleedkan hadda dhismay 10 bilood ay qaadatay shirka la fariiqay bishii Janaayo laga doonkeeyay oo aad adiga caqabada jiray intoodii badna xal laga gaaray haddana waxaa jira kuwo yar oo weli taagan wuxuu yahay doorka dowladda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedkan xordhanka ah sidii caqabadaha yar iyo dadka weli aan ku qaansanayn dowlad goboleedkan dhismay lagu qancin lahaa oo nidaamkan laga bedeli lahaa wallahi taas waxa waaye waajibka cusub u yaalo dowladda Hirshabelle dowladda federaalka doorkii ay lahayd wixii ay soo qaban kartay inta badan way soo qabatay dhamaystirka wixii dhiman hadda waxay u taalaa dowladda Hirshabelle dowladda federaalkana mar walba kaalmadeedii oo nooc walba way la garab taagan tahay laakiin hoggaanka waxa dhiman lagu dhamaystirayo dowladda Hirshabelle ayaa laga rabaa waajib ay ku tahay waana bilaabeenbo madaxweynaha Hirshabelle waa kii beledweyne ka degtay ayadoo maanta la caleema saarayay ka hor beledweyne waa kii tagay dadkii qanciyay la hadlay marka dadaalku way bilaabeen wayna dhamaystiri doonaan annaguna muxuu ahaay waan garab siinaynaa sidii ay u dhamaystiri lahaayeen haddii alla yiraahdo sidaan ognahay deegaano yar oo kooxaha argagixisada ay kaga haray labadan gobol Hirshabelle dowlad goboleedkuna waa cusub yahay in hadda abaabul la galo iyo wax badan bay u baahan tahay wuxuu yahay marka arrintan nafsigeeda doorka dowladda dhexe ee Soomaaliya xoreynta deegaanada gacanta ka maqan yar weliba marka loo eego labadan gobolada kale yar dowladda ka qaadanaysa maamul deegaanadii oo dhan gaar dagaalka shabaab lagula jiraahay horta waa dagaal oo qaran waaye dagaal dowlad goboleed u gaar ah ama deegaan yar u gaar ah maaha
dowladda federaalkana way kula dagaalkaas hormoodi ka tahay ayadoo kaashanaysa dowlad goboleedkana deegaanada aad tilmaantay oo dhiman waa la xoreynayaa waana la hagaajinayaa dowladda federaalkana waajibaadkeeda ugu waaweyn ay qaadatay ka mid tahay dalka shabaab inay ka xoreyso ka saarto dowlad goboleedkan marka sida dowlad goboleedyada kaleba dhulal ka mida dhulalkooda weli uu shabaab ugu dambeeyo dowlad goboleedkana dhulkiisa qaar ka mida shabaaba ku dambeeyo laakiin dowladda federaalka oo hadda dowlad goboleedka dhashay cusub kaashanaysa iyo dadkeeda dagaalka shabaab waa sii socon doonaa waana laga xoreyn doonaa deegaanadaas mar dhow haddii alla yidhaha insha allah waaya madaxweyne dadku waxay yidhaahdaan marka jowhar laga hadlayo in badan oo wada warhaysa oo waxaad ka mid ahay dadkii soomaaliya ogaalku ahaa jowhar ama jidda maanta jowhar aad ku sugan tahay waa xaruntii dowlad goboleedka hawya aragtida marka la eego magacaas iyo barwaaqada labada gobol iyo barwaaqada halkan ka jirta maantana jowhar aad joogtay labadan gobol sideedaba wixii khayraad oo dalka Soomaaliya uu leeyahay oo dhamay leeyihiin waad og tahay webiga dhex maro labada gobol oo banaanka inta ka soo gala dhinac kale uga baxa webigaasi wuxuu ka mid yahay nimcada oo gobolada khayraadka goboladan ay leeyihiin oo dhul beereedka xagiisa muxuu aad iyo aad u saacideeyo labadan gobol waxay leeyihiin xoolay leeyihiin dhul xooladay leeyihiin xoolaha Soomaaliya meelaha ugu badan yihiin ay ka mid yihiin labadan gobol baday leeyihiin dheer oo maxaan ku raadaay wixii khayraad bad ay leedahay oo dhan leh ayay leeyihiin marka dhinac walba marka laga fiiriyo laba gobol oo aad iyo aad qani u awaaye laakiin waxa ka maqnaa waxay ahayd maamulkii qaninimadaasi in laga faa'iideysto keeni lahay awooddii looga faa'iideysan lahay xooggii iyo xoolihii looga faa'iideysan lahay aqoontii looga faa'iideysan lahay dadka keeni lahay waaye dowlad goboleedkiina waa joogaa marka dadkaani inay mar dhow barwaaqo gaari doonaan oo jowhar ama jidda la yidhaha jiddadiiba inay ka fiicnaan doonaan rajaynaynaa insha allah dowlad goboleedkan marka loo eego dowlad goboleedyada kii ugu dambeeyey galmudug oo sanadkii hore la dhisay wayna ka hareen marka loo eego nidaamka federaalka waa dowlad goboleedka ugu dambeeyey sidee bay kula tahay inay bedel tegi karaan dowlad goboleedyada kuna heli karaan xuquuqda marka loo eego dowlad goboleedyadan dhismay dowladda dhexe iyo caalamkana si caadi laba arrimood waaye mid waxa waaye arrinta siyaasadda wixii hore loo soo qabtay oo dhan way qabsoomeen dowlad goboleedkana wuu aqbalayaa wuuna ku soconayaa wixii cusub oo dhiman oo hadda la qabanayana ayagaaba gogol fadhi u ahoo jooga oo taladeeday wax ku leeyihiin wixii ama dowlad goboleedkan dani ugu jirin ama Soomaaliya inaanay dani ugu jirin ay u arkayaan iyagaaba taagan hadda ka bacdi oo meel walba fadhiyo oo ka qayb qaadan doona taas marka waa sidaas laakiin wixii horey loo soo qabtay oo madashu soo qabatay oo dowladda federaalka ay soo qabatay oo dowlad goboleedyada kale oo dhan ay isku raaceen waxaasi ayaguna qaybay ka yihiin waana ku raaci doonaan waxa dhimanna ayaga ayaa u taagan oo ka hadli doono marka sida ay ku gaarayaan dhinaca siyaasadda iyo dhinaca maxaan karo wada hadallada iyo dowlad dhisiddu waa sidaas sida kale dee intii hadda gobol ay ahaayeen xataa labadan gobol dee horumarinta dalka wixii un suurtagal way ka gaarayeen laakiin wixii dowlad u baahnay dowlad goboleed u baahnay yaa u dhinay ayaguna hadda insha Allah u bilaaban doonaan haddii alla yiraahdo dowlad goboleedkooda maanta macalimo saaran haweenkooda horan hogaankooda loo joogto Hirshabeelle waxaan kula dardaarmayaa iyo dadkeeda in ay kalsooni badan qabaan oo ay dhaafaan muxuu ahay isqabqabsiga iyo waxa iska yareeyaan si dhaba oo walaaltinimo ah oo in wax la dhisa ah inay u wada hadlaan wixii mugdi oo jiro dhan ay u bixiyaan wixii aan mugdi ka jirin inay hore u sii wataan ay dhaqaajiyaan meeshii mugdi jirana walaalnimo inay u wada hadlaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada kalena ay kaashadaan horena ay u socdaan ummadda wax loo qabto dadka ay matalayaan dowlad goboleedkan uu matalayo in la taabsiiyo faa'iidada muxuu ahaay dowlad goboleedka soo kordhisay in degdeg loo taabsiyaa loo baahan yahay ayagoo hana kaashadeen dowladda federaalka diyaaran u nahay inay kaashadaan dowlad goboleedyada kale walaalahoodana waa u diyaar marka waa rajaynayaa mar dhow in ay la soo mid noqon doonaan dowlad goboleedyada ka horreeya hore u jiray madaxweyne ugu dambeyn waxaan rabaa inaan ku weydiiyo nidaamkan hadda federaalka ee dowladdeena dalkeena qaatay hadda waxaa lagu guulaystay in waddankiisa federaalka uu hirgalay hadda caasimaddii hirshabeelle joognaa iiraan jowhar nidaamkii in
maadaama dowladdii dhexe ay soo qaaday ay keentay deegaankii labadii gobolladii ay keentay wuxuu yahay doorka dowladda dhexe ee ku aadan in tuulooyinkii iyo meelihii miyiga ahaa ee dadka joogeen la gaarsiiyo dowladnimada shaqada dhiman waxa waaye waa taas waayaba xukunka in hoos loo sii daadajiyo dowlad goboleedkaan joognaa caasimadiisaan joognaa inuu hoos u degdego oo degmooyinka dowlad goboleedka dhan uu ka koobmo ay gaarto oo ayaguna maamul loo sameeyo dhistaan kabacdina dad taladooda go'aamiya doortaan ayagu degmo mustawaha degmo ilaa tuulo uu gaaro taladu ay gaarto oo meel walba oo dhowr qoysyo Soomaali ay ku nool yihiin dad u taliyo oo ayagu ay talada u dhiibteen in la helo waaye dadkaasaa taladiina u hayo horumarkii u hayo wixii ka maqan muxuu ahay u raadinaya wixii ay haystaan sida si ugu fiican inay ugu dhaqmaan u go'aaminaya marka arrintaasi waa nidaamka dowladnimada ay raacsan tahay waajibka ugu horeeya oo dowlad goboleedka madaxdiisa saaran waxay tahay talada inay hoos u sii daadajiyaan oo dadka Soomaalida ee hoose fursad la siiyo haddii la yiraahdo aad iyo aad u mahadsan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud TV-ga qaranka Soomaaliyeed ayaad kala socoteen magaalada Jowhar oo aan kaga soo tabinaynay inta mar kale dib u kulmi doono waxaan kaga tegaynaa sida ay nabadgelyo waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud aad iyo aad u mahadsantahay